salaamullaahi calaykum wacan daawadayaal meel walba aad caalamka ka joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka Amiina Al-Mufti. Amiina Al-Mufti waa gabar u dhalatay dalka Urdun balse markii dambe ku biirtay ciidanka sirdoonka Israa'iil. Xilligii ay ku biirtay sababta ku kaliftay in Israa'iil basaas u noqoto iyo waqtiga ay ku biirtay intaba waxaad kala socon doontaan barnaamijka daawasho wacan. Waxa ay ku dhalatay mid ka mid ah xaafadaha dadka ladini degaan ee magaalada Cumaan caasimada dalka Urdun sanadku markuu ahaa 1939 waxaanu waalidkeed ugu wanqalay magaca Amiina. magaceedu oo buuxa waa Amiina Daawud Mohamed Al-Mufti. qoyskeedu waa muslim isirkiisu ka soo jeedo qowmiyadda Sharkiska. haddaynu wax yar ku hakana Sharkisku waa qowmiyaddii inta la ogyahay ku horeysay ee ku dhaqnayd gobolka waqooyiga Qowqaas waxaa se kala firdhiyay dagaaladii dhulballaarsiga ee imbaradoriyadii Ruushka intii u dhaxaysay sanadkii 1721 ilaa 1917 ku qabsaday guud ahaan gobolkaasi. dagaaladaas iyo xiisado colaadeed oo socday in ka badan 100 sano ayaa keenay in dad aad u badan oo qowmiyadda ka mid ah ay u haajiraan dhulka ay ka talinaysay dawladdii Cusmaaniyiinta ama deegaanadii nabdoonaa ee Ruushka. Sharkiska oo badankood muslim sunni ah oo ku dhex milmay qowmiyadihii ku hareereysnaa iyo kuwii ay dhulkooda u haajireen markii khilaafada Cusmaaniyiintu ay burburtay. dalalka ka dhashay ee Sharkisku aad u degan yihiin waxaa ka mid ah wadamada kale ah Urdun, Turkiga, Ciraaq, Iiraan, Lubnaan, Suuriya, Falastiin, Sacuudi Carabiya iyo wadamo kale. iyada oo qolo kasta dalka ay ku dhaqan tahay ku dhex milantay luqad ahaan iyo jinsiyad ahaan, haddana waxaa jira dhaqan guud oo weli ka sii dhaxeeya. haddaynu ku soo noqono sheekada Amiina, awoowayaasheed ayaa sanado badan ka hor u haajiray dhulka Urdun oo inta ay la qabsadeen nolosha iyo deegaanka ku dhex milmeen bulshada dalka ay meel sare ka gaareen siyaasadda iyo dhaqaalaha. aabaheed waxa uu ahaa maalqabeen ka ganacsada dahabka. adeerkeed waxa uu ahaa jenaraal ka tirsan ciidamada boqortooyada Urdun. hooyadeedna waxay ahayd marwo waxbaratay oo afar af si fiican ugu hadasha, xidhiidh aad u adagna la leh marwooyinka bulshada dabaqada sare ee dalka Urdun. waxa ay ahayd guurdambaysta qoyska oo ka koobnaa 6 caruur ah oo ay ku jirto 2 hablood oo ka waaweyn xaasle ayaa ay ahaayeen, 3 kalena wiilal ayaa ay ahaayeen. waxa ay ku garadsatay koolkoolin ay labadeeda waalid la hareero taagan yihiin iyo kalgacal ku abuurmay qab iyo in ay isu aragto ruux dhiggeeda ka sarreysa. codsigeedu waxa uu ahaa amar. qasriga qoyskoodana waxa ay ka ahayd muraayad la daawado oo qosolkeeda iyo codkeedaba labada waalid ay ku raaxaystaan. waxbarashadii dugsiga sare ee Amiina waxay ula kowsatay gabarnimo buuxda, barwaaqa ku kor, dhabankeedu labeen leeyahay oo quruxda Rabbi u dhaliyay uu ugu daray garaad iyo fariidnimo. ruux ay aray isdhaafsadaan naqirayo, laakiin dabeecad aan iyada oo kale laga filayn ayaa u dheerayd. inkastoo aanay gurigooda dhanna u dhaafin, haddana waxa ay la kacantay nacayb xad dhaaf ah iyo kasantaag badan oo ay u hayso dhaqanka qoyskeeda ee dhowrsoon. waxa ay si joogta u yasi jirtay dhaqanka Carabta oo ay u arkaysay in uu yahay mid xirxiran. riyada kaliya ay leedahay iyo hadalhaynteeda ugu badani waxay ahayd jacayl iyo dhaqan furfuran. Amiina waxa ay haasaawo isku barteen wiil asalkiisu Falastiini ah oo reer Urdun ah. jacayl aan xuduud lahayn ayaa ay wiilka u qaaday, laakiin waxa ay ku hungowday markii xilli uu qalbigeeda god weyn ka qoday uu si kadis ah uga gaabsaday. waahii adkaa ee nafteeda ka soo gaaray caashaqaas guray waxaa ku sii xumeeyay duruufaha ay ku jirtay ee ka dhashay isgadgadiska abuurka ah ee kala guurka koritaanka caruurnimada iyo gashaantinimada, iyo sidoo kale marxaladda kala guurka ah ee u dhaxaysay dhaqankii dhowrsoonaa ee lagu soo koriyay iyo nolosha furfuran ee ay ku riyooto. wiilkani kama uu tagin uun Aamina ee waxa uga daldoorsaday inan da'deeda ah balse deganaanshiyo iyo qurux dheer. maalin maalmaha ka mid ah ayaa iyada oo warmoog ah ay heshay waraaq ka nixisay, ama aynu oran karno waxa ay noqotay waraaqdii nolosheeda iyo mustaqbalkeedaba bedeshay. waa Basaam oo u sheegaya in uu kaga baxay haasaawihii iyo jacaylkii. weliba kama uu tagin uun ee aflagaado iyo erayo weerar ah ayaa ugu soo qoray waraaqda. waxa aad tahay danaysato kibir badan,
si fudud isaga caroota oo dabeecad baahal ah leh ayuu waraaqda ugu soo qoray Basaam. waxaa suurtagal ah in ay ahayd qofkaas uu sheegay Basaam, laakiin naxariis darro ayaa ay ahayd in uu isugu daro ka tagis iyo hadalladaas qallafsan. waxa uu farta ku fiiqay meelaha ay barbaarinteedu ka qaldantay iyo sida qaldan ee ay nolosha u fahansan tahay. Amiina maadaama oo ay wiilkan Basaam jacayl aad u xoog badan u qabtay, gaabiska kaga yimid iyo hadallada uu u quurayba waxa ay ku rideen dhakafaar iyo u qaadan waa gelgelay qalbigeedii yaraa. waxaa markiiba ku abuurmay dareen faraya in ay aargoosato. walbahaarkii caashaq ee ku abuurmay iyo murugada ay ka qaaday jacaylka kuwa cadfuray awgeed waxa ay gashay xaalad ay nafteeda iyo nololba loolan kula jirto. khasaarihii ugu horreeyay ee ka dhashay waxa uu galaaftay waxbarashadii oo ahaa waxa ugu fiican ee qoyskeedu kula dadaalayay. imtixaankii dhammaysashada dugsiga sare ayaa ay ku soo baxday dhibco aan gaadhsiisnayn waxbarashadii jaamacadeed ee ay doonaysay. maadaama oo laga warqabay jaamacadda ay rabtay, ardayda dugsiga iyo dadka ka agdhow oo dhammina ay la socdeen doonisteedii waxbarashada, Amiina waxaa ku sii adkaatay in ay ku sii dhex noolaato bulshada og in jaamacadda ay dhigataa ay tahay mid aanay iyadu dooran ee dhibcaha hoose ee ay imtixaanka ka heshay ay geeyeen. wejigabaxaas ay kala kulantay natiijadii imtixaanka iyo imtixaankii jacaylka ee ugu horreeyay awgii waxa ay Amiina ku taashatay in ay waxbarashada jaamacadda u doonato dalalka Yurub. xilliyadaasi dadka sida qoyska Amiina aadka u ladan ee dalka Urdun waxaa caado u ahayd in ubadkooda ay waxbarasho ugu diraan dalalka reer Yurub. sanadku markuu ahaa 1957 ayaa ay Amiina ku biirtay jaamacadda Vienna. waxa aanay degtay guriga tirsigiisu ahaa 56 yahay 56 oo ku yaala shaarica St John B56. laakiin markii ay dhowr toddobaad deganayd guriga ayaa ay u guurtay dhismaha hoyga ardayda ee jaamacadda ee ay dhiganaysay, qayb loogu talagalay ardayda shisheeyaha ama ajaanibta ah. durbadiiba noloshii cusbayd Amiina waxa ay gelisay farxad iyo rayn hor leh, jawi yididiilo leh oo ay nafta ugu sheekaysay in ay ugu yaraan ka soo durugtay dhaqankii tolkeed ee ay u arkaysay inuu yahay mid xirxiran. hase ahaatee noloshaas ay ku farxaysay waxa ay dhalan rogtay shakhsiyadeedii iyo habdhaqankii lagu soo ababiyay. waxaa qolka la deganaa arday aad u furfuran oo sii dhammaysanaysay kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda. waxa uu magaceedu ahaa Julie Patrick oo u dhalatay dalka Koonfurta Afrika. waxa ay waayo aragnimo dheer u lahayd nolosha reer Yurub, goobaha laydhsiga iyo dalxiiska loo tago ee magaalada Vienna, iyo xurriyadda aan dhamaadka lahayn ee ay dareemi karto inan ka timid dunida barigu ama wadamada Carabta. Julie waxay Amiina bartay sigaar nuugista. waxa ay uga digtay in ay wiilasha wax xidhiidh iyo saaxiibtinimo ah la yeelato maadaama oo ay imaanayso khatar ah in ay uur qaado, taasina ay mustaqbalkeeda waxbarasho mugdi gelinayso. laakiin talada taas beddelkeed ay siisay ayaa ahayd in baahideeda jinsiga ah ay ku damin karto dhaqan aan horay niyadda Amiina ugu jirin oo ah in xiriirka dadka isku jinsiga ah. Julie Patrick waxay Amiina ku qancisay in macaamilkaasi uu yahay ka ugu habboon ee ay nafteeda ku qaboojin karto iyada oo aan khatar dambe iyo cawaaqib ka dhasha ka baqaynin. taas oo ay ku qanacday lana ay bilowday dhaqan xumadaasi. muddo markii ay wadayna waa ay qabatintay balwadaas. waxa ay gaadhay heer aanay kaba maqnaan karin xiriirka jinsiga ah ee dhadiga la midka ah ay wax moodayso. khajiladii ay dhaqankii Carbeed kala timid iyo anshixii Islaamka ee lagu soo barbaariyay ku raad lahaa ee ay iyadu u arkaysay in uu yahay dabar nolosheeda raaxada u diidan. labadaba dhinac ayaa ay isaga tuurtay. sanadkii koowaad ee waxbarashada markii ay Amiina dhammaysatay waxaa la gaaray dhammaadkii xiriirkii foosha xumaa ee Julie Patrick ay wadaagayeen. maadaama oo ay waxbarashadii dhammaysatay waxa ay ku noqonaysaa magaaladii ay ka timid ee Johannesburg, caasimadda dalka Koonfurta Afrika. muddo gaaban gudaheedba Amiina waxa ay u axraarootay balwadii sida maandooriyaha nolosha ugu qurxin jirtay. waxa ay nafta u sheegtay in aanay noolaan karin gabadh kale la'aanteed. waxa ay u dhawaatay gabadh kale oo lagu magacaabo Jean-Philippe Wortroot maadaama ay u arkaysay in ay gabadhan isla fahmi karaan dhaqamadii xumaa. waxa ay dadaal u gashay in ay maamulka hoyga ardayda ee jaamacadda ku qanciso in loo ogolaado in ay qol wada degaan Jean-Philippe. sidii ay filaysay ayaa ayna u dhacday oo bartii ayaa ay dhaqan xumadii ka sii amba qaaday. sanadihii waxbarashada ee jaamacadda Vienna
ayaa ay xawaare maalmo yar u ekeysiyey ku dhaafay iyada oo weli ku mashquulsan noloshii halowga ahayd iyo xorriyaddii aan xuduudda dhaqanka iyo diinta midna aqoonsanayn. laakiin nasiib wanaageedu waxa uu ahaa in ay weli sii waday waxbarashadii ilaa ay shahaadada koowaad ee jaamacadda oo cilmi nafsiga caafimaadka medical psychology ay ka qaadatay jaamacadda. maadaama oo ay waxbarashadii dhammaysatay qoyskeeduna tirsanayay maalmaha ay ka maqan tahay guurdambaystii ay jeclaayeen, waxa ay noqotay in Amiina ay dib ugu noqoto dalkeedii bishii 8aad ee sanadkii 1961 ayaa iyadoo ku qasban ay ku soo noqotay magaalada Ammaan ee caasimadda dalka Urdun. laakiin waxa ay la guryo noqotay dareen iyo dhaqan aad uga duwan kii ay markii hore kala tagtay Cumaan. qalab badan, wehel la'aan iyo dhaqankii iyo dadkii ay u timid oo ay ka santaagtay maadaama ay u arkayso dib u socod ayaa sabab u noqday in gurigeedii ay qariib ku noqoto. cidladii iyo walbahaarkii badnaa oo ay u raacday balwadii ay qarsan jirtay ee joogsatay waxa ay Amiina xusuusteedii dib ugu celisay. dharaarihii jacaylku u cusbaa ee ay wiil Basaam la yiraahdo kula qaadatay magaalada Ammaan hore ayaa loo sheegay xasuusta jacaylka koowaad ayaa waarta. Amiina waxa ay go'aan ku gaadhay in ay wiilkaasi raadiso oo ugu yaraan mustaqbalkiisa waxa uu ku dambeeyay ogaato. magaalada Ammaan ayaa ayna dhan kasta u martay si ay indhaheeda ugu soo aragto ama warkiisa cid uun uga hesho. talow miyay heli doontaa? haddii ay hesho maxay ku samayn doontaa? isaga dhankiisu ma soo dhaweyn doonaa? maxaa dhex mari doona? warbixintan waxaan kaga mahad celinayaa oo soo diyaariyay Kamaal Marjaan. su'aalahaas iyo kuwa kale isweydiis mudan waxaad kula socon doontaan warbixinteeda kale.